بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل بدرسغني كي هرو كحيدسن yahay asli anama lawa darsi loogu talagalay dad dhalinyaro ah oo ama jaamacad ama wax la mid ah dhigtay oo shubahaadka dadka aan ilaahay rumaysanayn ay soo gaadheen sadaradeed oo iska adag tahay dad waaweyn oo waayeel oo muslima in loo akhriya markaan soo duuduubno mowduucaynu ka hadnay wuxuu ahaa adillatu wujuudi illaahi subxaanahu wa tacaala adilada tilmaamaysa ilaahay jiritaankiisa iyo weynidiisa oo ay culammadu yidhaahdaan cadada khalqi illaahi bay laagtay waayo maa min makhluuqin ilaa huwa daliilun lilaahi subxaanahu wa tacaala wax ilaahay abuuray ma jiro oo makhluuqaadka ka mida cir iyo dhulba jira ilaa iyo wuxuu caddaynuu yahay rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin culammada filosofiga iyo sayniska iyo cilmulkalaamka iyo qolyahaasi markay wada hadlayaan qaab ay u wada hadlaan baa jira oo ay waxu istidlaalaan waxaynu maalintii hore soo tilmaamnay daliilkii loo yaqaanay daliilu الtasmiim aw daliilu اlcinaaya aw daliilu الnadm daliilkan farsamada ku tusinaya laba saddex daliiloo kale aynu sheegi wixaynu ka gaadhno waxaan ugu soo horraysiinayaa waxay yidhaahdaan almabda' اlbashari ama anthropic principle almabda' اlbashari mabda'an ay u bixiyeen waxa weeyaan dunidani siday u dhisan tahay bay leeyihiin dhammaanteed cirkeed iyo dhulkeed iyo waxeedaba marka la ysku daro waa kownun ucidda liistiqbaalina bay idhaahdeen waa duni loogu talagalay inay innaga ina qaabisho yacni macquul maaha bay leeyihiin aan tusaale fududoo dadku fahmi kara bixiyo ser antony flu oo ahaa ninkaynu nidhi sannadood buu mulxid ahaa waana malaaxidadii qarnigii labaatanaad ninkii ugu weynaa from aynu nidhi laga soo bilaabo doodii cambridge lagu qabtay ilaa iyo wakhti dambe kii agagaarkeeda la soo gaadhayo wuxuu ahaa doodyahankooda ugu weynaa ama jaamacad ama meel kastoo lagu doodayo loo yeedho ser antony flu markuu qoray buuggiisaan la yidhahda there is a god oo ilaahay rumeeyey ayuu masaladaa markuu ka warramayo wuxuu yidhi si qofka caadigii uu fahmi karo wuxuu yidhi waxaad sawirataa adigoo hudheel soo degay qurfadii hudheelkaaga ee aad timi waxaad ugu timi buu yidhi sariirta hudheelka kuu taalla xaggeeda sare suurad baa sudhan ah tii qolkaaga saarayd oo kale furaashka meesha saarani waa kii sariirtaadii yaallay oo kale dhulka sijaayadda ku goglani buu leeyahy kaarbadka dhulka yaalla waa kaarbadkii gurigaagii yaallay oo kale miiska yar falaawarka saarane waa falaawarkii miiskii gurigaaga saaraa buu leeyahy miiska caadigaa waxa saaran buu yidhi buggaasi waa gabay waa kii aad jeclaydee gurigaagii aad kaga timid dabcadiisii ugu dambaysay oo miiska saaran baad ugu timi buu yidhi waxaa meesha saaran buu yidhi jariidad waa jariidaddii aad akhriyi jirtay markaad meeshaadii joogtay tallaagadii qolka taallay baad furtay buu leeyahy markaasaa waxaad ugu timi sharaabadii aad cabbi jirtay baa ku jira jokolaatadaad cuni jirtaa ku jirta biyaha dhaladii aad iibsan jirtay nooceedii baa ku jira telefisyoonkaad furtay buu leeyay kanaaladii aad dhegaysan jirtaa ku jirta filimadii aad daawan jirtaa saaran muusiga meesha ka socdaad maqashay waa muusigii aad jeclaydee gurigaagii aad ku dhegaysan jirtay buu leeyahy xamaamkii baad gashay buu leeyahy markaa WC-gii qolka ayaad gashay
xamaamka waxaad ugu timi buu yidhi kalarka marsani waa kii marsanaa gurigaagii aad jeclayd waxaad ku aragtay buu yidhi shaambooga meesha saaran iyo saabuuntu waa kuwii aad isticmaali jirtay meel kastoo aad qolkan iyo intan eegta buu leeyahy wixii gurigaagii yaallabee yaalla waa maxay buu yidhi aragtidaad rumaynaysaa markaa ma waxaad rumaysanaysaa coincidence sudfa uun bal ilaahay amarkii qolkaagii unbaa la keenay meesha mise waxaad rumaysanaysaa buu leeyahy in cidi kaa warbixisay oo baahiyahaagoo dhan cidi ogayd oo dabeetana aad qolkan ugu timi waxa laaliya wixii aad u baahnayd buu leeyahy meesha waxa taalla buu leeyahy dunidanaynu ku nool lahay iyo qaabkay u dhisan tahay wax kasta oo nolosha bini'aadamku u baahan yahay baa taalla weliba qadarkii uga baahnaa buu leeyahy haddii kor looga qaado way fasahaadaysaa noloshu haddii hoos looga dhigo way fasahaadaysaa yaa inagu sii jaangooyey marka argumentkan waxay yidhaahdaan fine tuned bay yidhaahdaan fine tuning waa dabdi daqiiq maalan raadiyowga irbadda markaynu saarayno mid yar baa jirto tashuush ka ilaaliso aad irbadda markaad meel la hesho codku kaleer noqonaya haddaad xagga u yaro qaaddo ama waad ka baxaysaa ama codkaa tashuush noqonaya haddaad xagga kale u qaaddo ama waad ka baxaysaa ama codkaa tashuush noqonaya irbaddan aynu wadnaa waa xadhig yaroo ku xidhan capacitor variable capacitor sheegaya hadba capacitaniskaad rabtaa intuu leegyahay laakiin waxay yidhahdaan waa fine tuned meeshaa markaad saarto unbaad codkaa helaysaa waxay leeyihin dunida gebadeeduba meel bay saarantay jiritaankeeda iyo innaga nolosheedu isku xidhan yahay oo haddii wax kasto sida ay maanta yihiin haddii in yar laga dhaqaajiyo noloshu aanay gebagaboobayso amase aanay jiraynin walidalik baa waxay yidhaahdaan freeman dyson ninka la yidhahdaa wuxuu leeyahay mar kastoo aqoonteennu badataba waxa sii badanaysa buu leeyahay nolosheenna iyo universku siday mutataabiq siday isu waafaqsan yihiin waxaana inugu sii badanaya buu leeyahay dareenka ah war waa duni laynoo diyaariyey tani inay tahay baynu rumaysanaynaa buu leeyahay mabda'aasaa waxay ku tilmaamaan philosopheriesku anthropic principle bay yidhahdaan the strong anthropic principle almabda' albashari alqawi mabda'a kani wuxuu sheegayaa markaa waxay yidhaahdaan waa mid kaleoo ka mida saynisyahanada wuxuu yidhi tailor made for man weeyaan buu yidhi adduunka kani markaad marada tolanayso haddaad u tagto haddaad dee maro suuqa taalla soo iibsatana si unbay saataan aan xidhanaya ama kaa yaro ballaadhnaanaysa ama si unbay kaaga waasac noqonaysaa laakiin haddaad daawaarwalaha u tagto oo qiyaasta ku saarsaaro wuxuu kuu tolayaa maro adiga lagugu jaangooyey wuxuu leeyahay dunidanaynu joognaa waa tailor made for men waa mid loo tolay bini'aadamkaa lagu jaangooyey siday u taallo taa macnaheedu waxa weeyaan masaladani haddaan qur'aanku siduu u dhigo u tilmaamo qur'aanku wuxuu dhigaa masale la yidhaha ataskhiir dunidan waan idiin sakhiray baa ilaahay leeyahy wax kastoo aa u baahnaydeen ayaan dhex dhigay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fi الsamaawaati wama fi اlard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير في سورة اللقمان إلهي وحلي ورميدان أركين سيدان إذنكو سخري إذنكو سهلي إذنكو هبيي ما في السماوات وما في الأرض عرك وحجرة ينولك وحجرة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة iyo ilaahay nicmadiisa siduu idinku daboolay mid muuqato aad garanaysaan iyo mid qarsoon aydan garanaynba haddana ilaahay wuxuu nafsi laaya ku leeyahy wamin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir haddana dadka waxaa ka mida baa ilaahay leeyahy mid rabbiya arrimihiisa ku doodaya aqoon darro daraaddeed hanuun la'aan iyo kitaab la'aan daraaddeed u doodaya baa ilaahay leeyahy yacni kuwa ilaahay arrimihiisa ku doodaya laa cilmaan agtooda oolin walaa hanuun baan oolin walaa kitaab muniira baan oolin aayaadka mar baan idiin akhriyi doonaa laakiin markaynu masaladan tilmaamayno waxa ay tilmaamayaan oo sheegayaan dunidu sida ay u taallo
wax kastoo ka mida oo wax laga beddelaa waxay sheegaysaa inaanay noloshu jiri lahaynba mararka qaarkoodna waxay sheegaysaa inay in yar ku baabi'i lahayd walidaalika baa qolada physicsku waxay tilmaamaan cosmic constants waxay ku tilmaamaan in physics waxa laaliya waxa constant numberska la isticmaalo haddii mid ka mida uu isbeddel ku dhaca bay leeyihin noloshu ma jirteen sidaa awgeed baa waxa ay tilmaamayaan maalan mid ka mid ah oo weliba mulxida baa wuxuu qoray sir rice odayga la yidhaahdo ayaa wuxuu qoray buug la yidhaahdo the six numbers 6 number oo mid waliba gaarkii yahay oo mid walba haddii slight change uu ku dhaco aan dunidu jiri lahayn waa 6 ka mida constantskaasi culimmada qaarkood waxay gaarsiinayaan dhowr iyo 20 constant hadda ragga badh waxay gaarsiinayaan 100 constant wax ku dhodhow aan wax ka tilmaamo markaasaa la fahmi karaa maalan waxay leeyihiin dunidu maanta theoryga rumaysan yihiin waxa weeyaan inay qarax ku dhalatay big bang waxay leeyihiin davis oo kale ama stephen hawking oo kale labaduba inay mulxidiin yihiin bay u badan tahay haddana dee markay masaa'ilka kan timaaddo marmar baa warku kaa baxsan ayaad iska qiranaysaa waxa uu leeyahay difference of expansion dunidu way qarax markuu dhacay way fidaysay fidistaasi bay leeyihiin speedka ay ku socoto fidistaasi xawaaraheedu haddii ay isbeddesho 10 to power of 18 of a second 10 to power of an 18 of a second waa imisa waa second loo qaybiyey 10 la dul saaray 18 waa second loo qaybiyey maxay 10 18 0 la dhinac dhigay hadda waa 1 second waa 1 second oo loo qaybiyey in ku dhadhow million trillion millionku waa 6 0 trillionkuna waa 12 0 intaasaa 18 0ya hal second oo loo qaybiyey 1 milyan oo trillion parts loo qaybiyey in ka mid ah timeka intaa leeg waa time intee leeg timeka intaa leeg hadduu accelerationkeeda difference ku jiro adduunka kani ma jireen bay leeyihin oo waa maxay hadduu ka badan yahay bay leeyihin dispersing baa ku dhici lahaa dunidu beri horay baabi'i lahayd baaba ay gaadhi lahayd hadduu ka yar yahayna gravitational forceka ka badan lahaayo contraction waxaa jira waxay yidhaahdaan alinsixaaq alcadiim iyo alinfiraad alcadiim soo duuduubanka dambe waxay rumaysay in dunidu mar dambe la duuduubi doono ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yowma natwi الsamaaءa katayi الsijili lilkutub soo duuduubankaa hore u dhici lahaa bay leeyihiin marka muxuu leeyahay paul davis wuxuu leeyahay tani waxa ay sheegaysaa fine tuned inay tahay speedkan in lagu qiyaaso 1 divided by 10 over 18 of a second accelerationku hadduu isbeddelo xawaaruhu intaan leeg hadduu isbeddelo inaan duniyo jiri lahayn qiyaasta caynkaasa cidda samaysay buu leeyahay waa cid caqli badan oo wax badan ka fakaraysay waa intelligence ba ka dambeeya buu tilmaamaya waxay yidhaahdaan qaraxaas densitigiisu cufnaanta hadday in yar ka weyn tahay markiiba wuu dumi lahaa hadday in yar ka fududdahay markiiba wuu baxsan lahaa yacni ma jireen waxay tilmaamaan the four forces afarta quwadooda dunida ay wax ku qiimeeyaan waa electromagnetic force emf quwadda leydhka iyo quwadda gravitationka isjiidadka iyo labada quwadooda nuclearka ah strong nuclear force iyo weak nuclear forceka waa mas'alo ciddii physics dhigatun loo sharxi karo afartaa quwadood bay leeyihiin haddii mid waliba waa specific in bay ku go'antay in yar slightly haddii mid qudha laga beddelo dunidu haba yaraatee ma jirteen bay ku tilmaamayaan
waxa ay sheegaan war meeshani ilaahay wuxuu leeyahay wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiira baa ilaahay yidhi wax kasta rabbi waa abuuray laakiin wuxuu abuuray isagoo jaangooyey jaangooyn qiyaas loogu talagalay iyadoo ku socota maalan waxay tilmaamayaan wax kasta oo dunidan yaalla aan tusaalayaal kooban oo dadku caadi u fahmi karo wax ka tilmaamo markay leeyihiin kownun ucidda lana waxay dhahdaan dhulka qoloftiisu dhulku marka la dalooliyo hoos loo socdo inta hoose waa maxay waa dhoobo oo kale waa melting waa wax cajiin marka qolof buu leeyahay qoloftiisa meesha ugu yari waa 70 kilomitir waxay dhahdaan qolofta dhulku intay hadda tahay hadday ka weynaan lahayd dunida ugumayna nimaadeen bay dhahdeen wax oksijiinayadaa nuugi lahayd wax carbon dioxide-ana looguma yimaadeen that means noola kuma noolaadeen hadday in yar ka yar tahayna waa cagsiga maalan waxay leeyihiin atmosferka hawadan cufnaan bay leedahay culays bay hawadu leedahay haddii culayskeedu intaa ka fududaado densitygeedu culayskeedu hadduu intaa ka fududyahay hawada way kor bay u bixi lahayd hadday kor u baxdana waxbay inagamay celiseen iminka xidigaha dhaca iyo waxaynu aragno nayaasigta iyo shuhubka iyo waxaynu aragno dhan astrodiskaasi xidig baa dhacday Soomaalidu tiraahdaa laakiin inama soo gaadho wuxuba dhulkay ku soo dhici lahayn bay leeyihiin that means noole kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygenka dunida maanta waa percent 21% hadduu in yar ka badan yahay bay yidhaahdaan every 1% oxygenku uu bataa bay leeyihiin 70% buu kordhinaya inay dunidu gubato macnaheedu waxa weeyaan oxygenku hadduu 22 ahaan lahaa hadduu 21 ka yahay hilaac kastoo dunida ka dhaca way guban lahayd hilaacu markuu billig yidhaahdo kayntoo dhan baa ololi lahayd wax jiraa ma jireen magaalooyinkaa ololi lahaa waxay leeyihiin cadceeddu intay inoo jirto distanceka inoo jirto hadday ka fog tahay waynu engegi lahayn hadday ka dhowdahay waa la guban lahaa dayixu inta uu jiro hadduu ka dhow yahay badda caarigeeda mawjadaheedu labada goorba wuu ina qarqin lahaa marna xagga kale uga bixi lahayd marna waa ka guuri lahayd hadday ka durugsan tahayna waa kadalik dhulka wareegiisu bay leeyihiin intuu yahay hadduu ka dheerayn lahaa iyo hadduu ka gaabin lahaa labadaba nololi ma jirteen hadduu ka gaabin lahaa macnaheedu waxa weeyaan habeenkaa dheeraan lahaa iyo maalintaa dheeraan lahaa sida planetiska kale marna waynu guban lahayn cadceedda tirada badan leyna haysa marna qabow baynu u dhiman lahayn qabowga tirada badan leyna haya dhulku dayax maadaama uu magnetic fieldkiisu hayo tilted weeyaan 23 degree 27 wuu yara qalloocabay leeyihiin dhulku qalloocaasi haddaanu jiri lahayna uu toosnaan lahaa bay leeyihiin dhulku sidaa u taagnaan lahaa imka waa yara sidaa hadduu sidaa u taagnaan lahaa bay leeyihiin roobka da'a north polka iyo south polka labada qudbo qudha roobku heli lahaa dhulka intiisa kalena saxaaray ahaan lahay maalan waxay tilmaamayaan haddaanu tiltidhkaasi sidaa ahayn ama roobka ama dabaylaha ama biyaha badda haddaad tidhaahdo hadday intan ka yara dhanaanaan lahaayeen nololi kama jirteen hadday intan ka macaanaan lahayd nololi ma jirteen grafitiga dhulku hadduu intan ka yara weynaan lahaa waxay leeyihiin maroodiga xayawaanka leegi xasharaadku leekaan lahaa ma la koreen innaguna dee hadduu maroodi xasharad leekaanaya quraanyadaynu ka sii yaraan lahayn dee quraanyoyin yaroo dhulka kor socda ayaynu ahaan lahayn the four forces mid kastoo wax iska beddelaan nololi ma jirayso buuruhu siday yihiin haddii wax laga waxay leeyihiin war wax kastoo dunidan dul saaran saynisyahanadu waxay leeyihiin wax kasta oo dunidan korkeeda saaran oo maanta aynu hayno haddii wax yar laga beddelo nololi ma jirayso idan bay leeyihiin kullu dalik waxay sheegaysaa inuu yahay tartiibun mutacammad bay leeyihiin war waa tartiib lagu talagalay oo noloshu waa nolol laynoo sii diyaariyey waa kownun ucidda lanaa bay tilmaamayaan qadaayaadka ay sheegayaan haddaan sii tilmaamo waa waxayn runtii
wakhtigu ku fillayn waa waxaan wakhtigu ku fillayn oo dee waxa ay tilmaamayaan everything wax kasta oo dunidan korkiisa yaalla oo siduu yahay wuxuun laga beddelaa atmosphere ha noqdo cadceed ha noqdo distaniskay wax isu jiraan ha noqdo xataa atomka nuclearka wasnigiisa ha noqdo proteinka wasnigiisa ha noqdo spaceska u dhaxeeya ha noqdo forceska isku haya ha noqdo wax kasta oo nolosha ka mida oo wax laga beddelaa waxay keensanaysaa bay leeyihiin inaan nololi jiri karin taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa waa sida uu u dhigay Antony Flew waa kownun ucidda lana buu leeyahay waa waxaynu joognaa duni laynoo sii diyaariyey duni qaabka loogu noolaanayo iyo qaabka tahay dhammaanteedba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sii diyaariyey waxay leeyihiin waa duni fine tuned ah oo marka aynu fine tuned tilmaamayno macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo yaalla meesha uu saaran yahay haddii in yar laga qaado haddii laga qaado inaanay noloshu jiraynin ولذلك بو أحدهم وحول يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون بيري waxay u muuqataa buu leeyahay dunidu inayna sii ogayd inaynu imanayno waayo siday u taallo wax kastoo ka midi walidaalika baa laba ka mida fiisiyaanada waxay qoreen the privileged planet yani planetka la doortay ama waxa gaarka ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala haddaba burhaan ilbashari iyo markaan isku daro burhaanu nadm burhaan ilbashari anthropic principle iyo fine tuning burhaankaa markaan isku daro labaduba waxa ay tilmaamayaan adduunka kan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jaangooyey nolosha aadanaha saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay ataa amru llahi falaa tastacjiluuhu subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا والسبل لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تصرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم
ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإن بدن بمسائل كاسين وقعدي. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. أيها الأحبة أنت قالوا شيء الشيء وقرآن نخري أنت كور رمين هداي عرتي هداي دلتي هداي بطهي هداي حولتي هداي هوتي هداي روبتي إلهي بس سبحانه وتعالى كتابك سينوغ الشقية وحن معينه إنه دياريي أنت أصلا نمعين السيدان ديار سوء أهاته ودبيتنا نلش بنا آدم كو أي كسور توده واحد دياريوك يا رب سبحانه وتعالى ما أها وحكو أكسيدنس كدعة وحكستو نلشان كميدي افتينك عدعيدا إلهي سبحانه وتعالى ينرجو ينغسيان نوله ودم يكون نولي ويهدانا نرجو هذا الله هينين dunida wax chemical reaction oo ka dhici lahaaba ma jiro. caleenta yare geedka ku taala waa warshada ugu weyn ee dunida ku dul taala uguna qayliya buuq yar soo moogada caleentu inay tahay waxa noolaha dunida kor saaran oo dhan quudiya waxa noolaha kor saaran dunida oo dhan geedka iyo xoolaha iyo wax oo dhan caleen baa soo saarta waxay cunayaan caleentu geedkay soo saarta wuxuu cunayo geedkana xoolo iyo waxa nool oo dhan baa daaqa waxaan noolna way sii cunaan waxa laaliya waxa koonkan aynu saaran maanta dhulkaynu saaran warshada kaliya soo saarta waa caleenta yar iyana photosynthesis yar oo cadceed ay nooga qabato ayay farsamado dhan ku samaysaa
ilaahay subxaana wa tacaala ifkaasuu cirka ka keenay inta gaama raysiya waxaa rayse vaylo caafimaadka waxyeelo oo dhan atmosferiga laynagaga celiyey spectrumka atmosferiska lightka soo dhaafaa intuu yahay waa inta nolosha ay u baahantay 7 colorskan iyo inta yare ku xigxigta xataa badda markuu ku dhaco iftiinkaas maalan casaanku spectrumkan badda markay biyaha nalku ku dhaco casaanku 18 mitir buu ku dhammaadaa that means 20 mitir haddaad badda quusto nabar kugu dhaco dhiiggaaga arki maysid waayo wax casaan la yidhahdaba kama jiraan yalowgu markaad 100 mitir gaadhaa buu dhammaanayaa greenki iyo bluegu waxay dhammaadaan maxay 240 mitir waayo iyagu waa kuwa photosynthesiska sida si dhirta baddu ay u baxdo noolaha badda ku jira si uu geedkiisu u bixi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala nalalka kaloo dhan meesha sokaa lagu reebay laakiin greenka iyo bluega photosynthesiska waxa ay ka kariyaan dhirtu cunnada ka sameeyaana ilaahay wuu sii daayey ilaahay ay ka gaadhaysa 240 mitir roobka cirka ka soo da'aya biyaha ilaahay wuxuu ka dhigay dissolvable wax kastaaba ku milmi karaan inta ugu badan mineralsku waxay ku milmaan waa biyaha roobku markuu soo da'o ee webiyadu dareeraan 5 bilyan oo tan oo chemical bay badda geliyaan oo nooluhu u baahan yahay hadduu dhulku abaarsado baddana waa abaarsanaysaa roobkaasi hadduu di'i waayo ilaahay muxuu yidhi wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun cirkaasay jirtaabaa ilaahay yidhi arsaaqdiinna iyo waxa laydin yabohay dhammaantii roob hadduu di'i waayo kalluunkuna wuu dhammaanayaa badda waxa ku jiraana waa dhammaanayaan waayo mineralskay dhulka ka helayeen oo dhan heli maayaan bale oxygen ku filan heli maayaan waayo roobka badda hela waxyaabaha uu badda geliya waxaa ka mid ah oxygenka saa daraaddeed kalluunka laftiisa abaarsanaya hadduu roob heli waayo noloshan sidan u dhisan ee ilaahay subxaana wa tacaala saatan u sameeyey biyuhu khasaa'ista ay leeyihiin noolaha kaloo dhamme ma leh chemicalska kaloo dhamme ma leh walidaalik biyuhu markay 4 degree gaadhaan baa densitigoodu ugu culus yihi hadday ka hoos maraan waa maxay wuu fududaadaa waa sababta ilaahay ugu talagalay in badda waxa ay ku nool yihiin wailaa hadday 0 degree markay sii gaadhaba hadduu densitigu sii cuslaanayo barafku hoostuu mari lahaa iminka barafku dushuu sabeeya hoostana biyaha sabeeya haddii biyuhu ay la mid noqon lahayn materialka kale markay sii qaboobaanba densitigu culaysku sii badan lahaa oo biyuhu ay barafku hoosta maro noolaho dhammo oo dhiman lahaa ilaahay markuu uu kala bedelay baddaa waa la dhanaaniyey lowlaa aanay dhanaan ahayn dunida qudhumuun baa loogu dhiman lahaa milixdaa ay tahay ee leedahay ayaa badda waxa ku bakhtiyey iyo waxaynu ku gurayno iyo waxoo dhan urtooda bedeli lahaa wa ilaa dunidoo dhamme ur bay u dhiman lahayd hadday biyaha baddu macaan yihiin waxaynu isleenahay hadday baddu inoo macaanaato mala biyaad ka dhergi lahayd baad is leedahay maad noolaateen yacni noloshan sida ilaahay u dhiga ay u taallo hadday bad tahay iyo hadday berri tahay hadday xayawaan tahay hadday miqdaarka biyo ee cirka ka soo da'aya tahay hadday temperature tahay hadday yacni dhulku waxay dhahdaan ilaa 100 degree buu temperaturekiisu kala sarreeyaa marka loo eego equatorialkiisa iyo maxay iyo north polkiisa haddaanay sidaa ahaan lahayn bay leeyihin nolosha ma jirteen wax kastoo innaga aynu isleenay malaa sida kalea ku fiicnaan lahaa scientifically waxay leeyihin hadday sida kale ahaan lahayd noloshu ma jirteen taa macnaheedu ayuha alikhwa waxa weeyaan dunida tan aynu ku nool lahay waa halkaa uu ninka saynisyahanka ka leeyahay waa tailor made for man buu yidhi waa bahal loo dawaariyey bini aadamka loo dawaariyey waa ilaa intanoo dhamm inay sudfa ku dhacdo koojanis ay ku dhacdo waa waxaan suurtagal ahayn waanaynu shalay soo tilmaamnay wax allaaliya waxay sheegayeena koojaaniskoo dhamm inaan waxba ka jirin waa laba daliil waxa aan sheegay mid waa qadiyatu taskhiir ama mabda anthropic oo ah bini aadamka noloshiisa in waxaan loogu talagalay in kownkan cid musammima oo sii takhtiitiso ku talagashay noloshaasi inay ka jiri karto ay jirtaa ka labaadna waxa weeyaan inuu fine tuned yahay meel kasta halkay saarantahay haddii in yar dhanun looga dhaqaajiyo plus or minus dhanku u dhaqaaqaba inaan noloshu jiraynin daliilka saddexaad ee aan tilmaamayno daliil kastaaba saacad u qaadan laha haddii la sharxayo waa daliilu liijaad aw ilxuduud
waa daliilkay falaasafadii horena daliishan jirtay culamadii mutakalimiinta ee muslimiintuna daliishan jireen Thomas Aquinas iyo qoladii dambe kristaanka ahaydna ay daliishan jirtay ilaa haddana dad badan ay daliishadaan daliil الحدوث أو دليل الإيجاد وحويان آيات القرآن إلهي لي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون إلهي وحلي أم خلقوا من غير شيء dadka ma wax la'aan baa la abuuray ma iska ahaadeenu ma iska samaysmeenu am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun sayaga bay sabuuray Frank Allen nin la yiraahdo professor 40 years professor ha oo qadiyadan raba inuu miithaaliyaba wuxuu yiri dunidu xagay ka timi hadaynu isweydiino afar jawaabood ba jira buu leeyahay jawaab shanaad ma jirto afar jawaabood ba suurtagal ah inaad tiraahdo buu yiri waynu riyoonayna duniba ma jirto waxba ma jiraan hada filosofarska qaar ba sida ku doodo yiraahdo aniga waxa iga baxsay adigu inaad jirtay inaad jirin ma ogi idealismka qayb kamid ah saamisan waxa misay silaba waxa yiraahdaan wixii maskaxda ka baxsani ومتتولك مسكحدين وحقيقيين أنا وهين لما عطين كره ساسي قارو فكرين لكن وحولين إنه وحدرين منه وهالكي دي كارت لقى شيء أنا أفكر إذا أنا موجود كي لها I am thinking so I am واشرة والله ده سيبولي مرة بدن كوب بحين مايه كلبات وين إنه نحن محي والله أبورك وعد كلو أزلي يا أبورتي وإنه الدنيا هو حادث واتمي مربي بلا منطي ككلا وين ندهنه يدا بقى أزلية eternity يدا له ولقيت بويسو شرت سيدنا ويشرت جيلونيوس فيلسوفر كيلو أورنشرين محل هذا أها كوي هراء وين أجريجي هراء أيوة حول الدنيا دنوي لقيت بويسو شرتي sababta cadaynaysa waxa weeyaan cadceedan inta aynu taariikh ka soo gaadhay buu saasun bay soo baxaysay una dhacaysay loo arkayay isma bedelin ma yaraanin ma weynaanin waseedi therefore everything sidan bay weligeed buu soo jirtay buu tilmaamaya Imam al-Ghazali ayaa xilligiisii markuu falsafada radinayo wuxuu ku lahaa الشرط اللازم منطقه waxay ku tilmaamaan baad samaysatay buu leeyahay laazimna ma shaygu markuu baabaayo inuu dhubul inuu soo بختية صوب بختية ما شرطي بس أمر قرب ما وضع بختي كره شرطي ما هو شرطي يعني في علم المنطق غير لازمة إن تلاحظوا واحد صوب بابا يا وينو صهد أنت مر قرب وضع دمان كره وفقوانو بكون كره مدو دمان كره ما هر قرب نفطه سكن بكاجا بحكرته لكن ده ساينس كعصبي وحشاجي أنا دمان السبب مالي والبا أنت أسب بليروتان أو إنرجي بحساب that means waxa weeyaan hydrogen bay helium u rogtaa heliumku waa aashiskeedii waa dambaskeedii dabeetana waa sii dambasoobaysaa dambasnimaday ku sii socotaa inay dhimanayso imika ciidi murankaga ma jirto laakiin Jilanius waqtigiisii aqoonta halka ma gaarsiisanay waxaan uga jeedaa wuxuu leeyahay war waxa soo hadho dhamaan buu leeyahay waa laba midood azalinimada cid aynu siinayno ma dunida azal ah oo weligeed jirtay eternity مسينا نراهنا إياد من نقول كرتة إله eternity إله أزلي أبوري هدي أي نبورين كرنا بوله الدنيا ديناني ولقيت سوتشرين أي نبورينه alternative كلامه ما صح حدنا نراهنا إله بأبوري مويانه واجي هره materialist كي هره أما ماركيسم كي materialism كعدة من سنة ده دم واحد رميسنا الدنيا ولقيت سوتشرتي لكن ساينس كعسبوه بيني waxay maanta rumaysayeen inay cimri go'an baleed in laba xisaabin karo markay soo bilaabantay waa mas'alo taariikhda fiisikiska marka laga darsayo dheer inaynu ka warranaa Albert Einstein 1915 markii uu soo saaray qaacidadiisa ku saabsanayd general relativity-ga dunidu waxay rumaysanayd marka inay steeds ka tahay saasaanay ku doodi jireen dabeetana wiil yar oo 22 jir ah oo Russian ah
jaamacadaha raashinka jooga baa xisaabiyey deetana wuxuu yidhi calculationkaagaasi hadduu sax yahay dunidu ama way yaraanaysaa ama way badanaysaa ama way faafaysaa ama way soo yaraanaysaa albert einstein wuu diiday haddana george lamartin nin la odhan jiro oo belgium ahaa wadaad fiisiisyahan ahaa ayaa dib u xisaabiyey wuxuu yidhi dunidu way ballaadhanaysaa weliba fikradda haddana albert einstein wuu diiday habal ninkii la odhan jiray edwin hubble waa fiisiisyahan astrophysics maraykana markii ay sameeyeen california buurta ku taalla telescope-kan saaran ee ugu weyn waagaa hubble wuxuu ahaa markaa gruupka wax ku eega ninka odayga ka ah calculation buu sameeyeen redshift baa u soo baxay redshiftku waxa weeyaan warkoo kooban spectrumka haddii loo dhigo ifka midabadaa soo baxa soo maaha casaankaa sarreeya xagga kalena buluuba xiga iyo ultraviolet rayska iyo kuwa kan shayga haddii casaanku uu soo bato macnaheedu waxa weeyaan wuu kaa sii durkayaa hadday xagga buluuga u badatana macnaheedu waxa weeyaan wuu soo dhowaanayaa marka ifka shayga ka yimi muddo marka la qiyaaso wax la garanaya shaygaasi inuu inaga sii durkayo iyo inuu inagu soo socdo waa sida codka oo kale gaadhigu markuu kaa sii socdo iyo markuu soo socdo maxaad ku kala garataa marna guuxaysa soo taraya de baynu dhahnaa soo maaha oo soo dhowaanaya that means wavelengthkaa soo yaraanaya marna guuxaa sii durkayo sii yaraanaya that means wavelengthkaa sii dheeraanaya red wavku wuu ka ballaadhan yahay maxay blue waveska saa daraaddeed markuu kani soo yaraadana wuu soo dhowaanaya weeyaan mar kale wuu sii fogaanaya telekoskii waxay ku arkeen galaxiskan iyo waxaan inugu jiro iyo waxaan oo dhamm inay sii durkayaan dabeetana waxaa dhab noqotay dunidu inaanay taagnayn inay faafayso wax hadduu socdo dee macnaheedu waxa weeyaan meeluu ka soo bilaabmay baa jira saxaynka maaha daad dee dib u noqoto saa daraaddeed lamartin wuxuu u bixiyey maalintii aan maalini ka horraysay buu yidhi maalintii aan maalini ka horrayn ayuu u bixiyey maalintii aan maalini ka horrayn soo wad adigu hadda markii wakhti laga soo wareegay microwave radioga markii la helay 1964-65 laba ninoo bell company u shaqaynayay oo hoon anteena samaystay anteerooyinkan satellite-yada lagu eego dhankooda si ay signalska u qabtaan ayuunbaa tashuush ka bixi weyday akhiiran waxaanay filayn unbaa kaga soo baxay oo ah cosmic microwave waxay ku tilmaamaan cosmic microwave-ku waa microwave-yadan aynu shidanno radiationkay soo saaraan oo kale oo ay leeyihiin qaraxii dunidu markay bilaabantay ee qaraxda qiiqi ka hadhay weeyaan markay baashu qaraxday koowaad bugtii hore qiiqi ka baxay oo inuu qiiqaayay maxaa lagu caddayn karaya waxay leeyihiin waa in everywhere laga helaa labada nin 1978 baa nobel prize lagu siiyey haddana 1989kii dayax-gamaceedadii uu maraykanku dirayey ayaa la yidhi bal halkan keedii qiyaasanoo 3.something waa la hayaaye cirka iyo meelaha kalena ha la soo qiyaaso isagoo nafsu magnitude baa laga hela magnitudekiina la sidiya baa laga helay haddana 3 brofesoro kale lagu siiyey nobel prize haddana 2011kii markii ay arkeen supernovada ay haddana xisaabiyeen bay waxay garteen accelerationka bahalku qaraxu accelerationkii uu ku socday haddana nobel prize kale lagu bixiyey 3 jeer bay dunida nobel prize lagu bixiyey bahalkaa qarxee la sheegayo idan waxay leeyihiin warkiinnii odhan jiray dunidan weligeed bay soo jirtay waa beentiin saynisku wuxuu leeyay beri dhoweyd bay bilaabantay aan siiba fogayn adduunka kani beri dhoweyd aan siiba fogayn ayay bilaabmeen caddaymo badan baa la hayaabay tilmaamayaan waxaa ka mid ah second law of thermodynamics waxaa ka mid ah microwave radioga waxaa ka mid ah yani big bang theory waxa ku xidhiidhsan oo dhan waxaa ka mid ah helium maxaa la yidhaha hydroginku proportionka ay dunida u joogto waxaa ka mid ah yani iminka evidence tiro badan bay hayaan oo ay ku caddaynayaan inay beri dhoweyd bilaabantay yaa bilaabay markaabaa isweydiin leh from singularity waxay leeyihin atom materialka iyo energyga iyo timeka iyo spaceka wuxuuba mar quray wada bilaabmeen yaa bilaabay allahu badiicu الsamaawaati wاlard
waxaa jiray wakhti baa ilaahay leeyay kaanataa ratqan fafataqnaahuma maray bahashuba kuus yar ahayd waanu kala dillaacinay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala walidalik baa ninkan la yidhaahdo krieg PhD-diisii wuxuu ku qaatay waxay u bixiyeen kalaam cosmic argument kalaamka ma garanaysaan waa cilmulkalaamkii muslimiinta masaladan daliisan jiray dabeetana intuu eraygii soo qaatay ayuu wuxuu u bixiyey kalaam cosmic argument maxaa la yidhahdaa Birmingham University buu PhD-giisa kaga qaatay isagoo qaacidadan yar oo uu leeyahay imaam al-Ghazali baan ka soo qaatay imaam al-Ghazali fi kitabihi al-maqasid uu ka soo qaatay buu PhD ku diyaariyay qaacidadu waa intaanu two premises iyo natiijo premiseska koowaad waa every cause waa qanuunu sababiyya wax kastoo xaaditho kastoo dhacdo mar bilaabantaa sabab bay leedahay xaaditho kastoo waxbaa iska dhacay miyaad aqbalaysaa maya caqliga bini aadamku sidaaba uma samaysna bay leeyihin waa waxay ku tilmaamaan maxay axiomisku waxa weeyaan waa qaanuunka uu ku salaysan yahay philosophiga iyo science-kuba axiomisku waxa weeyaan wax kastoo dhacayn sabab loo raadiyo haddii aad rumaysato wuxuu inuu iska dhacay dee sabab uma baahnid dadminiskawnkuba fawduu noqon lahaa biyaha marna laydh isu bedeli lahaa marna waxaan bacaynka wax waliba dee iska dhici kari lahay laakiin wuxuu wax la darsi kara iyo cilmi inuu noqdaa waa inuu reasoninka aqbali karaa premiseskaas bay leeyihin bini aadamka o dhan baa isku waafaqsan duniduna mar bay bilaabantay waa premiseska labaad kaana waxay leeyihin sayniska iminka caddeeyey muran uma baahna qoladii murmi jirtay meesha way ka baxday Fred Hall nin la yidhaahdo mulxid ahaa ayaa wuxuu isku dayay inuu keeno theory la yidhaahdo steady state theory sida saliska bini aadamku ay u samaysmaan dunidu weligeedba way iska jirtee marka wax cusub baa samaysmo caynkana isna theorygiisii wuu socon waayey multiverse theory bay isku dayeen way socon waayey all the other theories lama hayo theory qoraal haya waxa weeyaan waa big bang inay bahashani mar qaraxday su-aashii wax weeye ayaa qarxiyey yaa sameeyey xagay ka timi ilaahay baa wuxuu ina leeyahay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khuliquu ma waxaa la abuuray min hayri shay wax la'aan miyaa la abuuray am hum alkhaaliquun mise iyagaa ah baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala kuwa wax abuuray labadaa midna ma jirto haddaanay midna jirin waa maxay khaaliq inay leedahay baa soo hadhay iyana waa daliil falsafiya in la sharxaa wakhti badan u baahan ictiraadaadkiisa in laga jawaabo wakhti badan u baahan qadaayadkiisa scientific proofka ay dhinac wadaan wakhti u baahan laakiin waxaan ku talagalnay uun duuduub ahaan inaan tilmaamno marka hadda waxaynu tilmaamnay saddex daliiloo adilladay sheegaana midi waa inay dunidu fine tuned tahay inay meel saaran tahay oo 1 divided by 10 to power of 18 of a second in leeg hadday wax isbeddelaan inaanay jiri lahayn wax kasta oo la qiimeeyaana siday hadda yihiin haddii wax yar laga beddelo inay kharribmayso kaasi waxa uu sheegayaa bay leeyihin qorshe inay dunidan ka dambaysay ilaah muriida oo doortay meel waliba inay sida noqoto biduuni iraada ma dhacdeen caliima oo og hadday sida kale u dhacda inay xumaanayso xakiima oo halka ugu quman u doortay qadiira oo awoodi kara inuu doorashada yeelan karo ilaaha sifaadkaa leh soo ma maqashaan culamaa ilkalaam oo ka warrama sifaati sabca sifooyinka toddobada ay sheegayaan waxa weeyaan waa kuwa mentally qofku isagoo aan sharciba eegin uu kownkan ka fahmi karayo ilaaha sameeyey inuu kuwaa ku sifoobo inuu caliimiyey inuu qadiiriyey inuu xakiimiyey inuu muriidiyey yani sifooyinkaasi waxay leeyihiin logica caadiga bini aadamkaa tilmaamaya saa awgeed waxaynu leenahay fine tuned bay dunidu tahay maantana aqoon-yahanku intooda badana waa tilmaamayaan haddana fine tuned ha ahaatee meesha ay ku sallaxantaha meeshii noloshu ku suurtagal ahayd oo qura oo iyana waxay leeyiin waa mabda' ilbashari cid inoo ogayd inaynu meesha iman doonno ayaa inoo sii diyaarisay waa kaa uu leeyahay antony flu
waa qurfadaada laga soo diyaariyey uun buu leeyahy waa inay jirtaa cid baahiyahaaga garanaysa wax kastoo aad u baahan tahay oo halkan sii dhigtay markaad caloosha hooyadaa ku jirtay waxbaad u baahnayd baahidaada ilaahay halkaasuu dhigay markaad ka soo baxdo waxbaad u baahnayd halkuu keenay caloosha hooyadaa markaad ku jirtay ilkamaad lahayn waayo umaad baahnayn markaad si dabadda timi ilkaad u baahatay waa laguu soo bixiyey sacanka maaha caloosha hooyadaa markaad ku jirtay waxba maad arkaynin aragumaad baahnayn markaad dabadda dhalatay maalmo joogtay baa indhaa lagu dilaaciya waxbaad aragtay ilaahay wax kasta markaad u baahnayd buu sallaxay wax kasta markeedaa loogu talagalay idan cid baahideenna og baa sii qorshaysay isna waa mabda'a labaadoo la daliishado mabda'a saddexaad aynu tilmaamnay waxa weeyaan waa mabda'u liijaadi waalkhalq yaa abuuray kownkani weligii buu soo jiray way beenowday waxa dhaba inuu mar bilaabmay yaa bilaabay waa inuu jiraa ilaah caalimo oo qadiiro oo awood badanoo waxa kan bilaabay wa huwa allaahu alqadiir ilaahay baa jaangooyo sida tan u dhisay idan mas'alada tani waa mas'ale aad u fudud marka ay joogto dee adduunka waxa ku noolinaa inay rumaysayin bay u badan yihin weligeedba minority group yar bay ahaayeen malaaxidadu fii ayi baab bay minority ku yihin xataa dadka bar baa u haysta malaa'imka jaamacadaha dunida iyo waxa ka saynisyahanada jooga maya saynisyahanada jooga waxay u badan yihiin mabda iluluhiya ma rumaysna laakiin mabda irububiya bay rumaysan yihiin si kale haddaan u tilmaamo diintii dalkooda taallay way ka shakiyeen oo christianity asbaaba inay shakiyaan keensadayna taariikhday soo martay ama ha ahaato qaladaad ay kitaabka ka heleen ama ha noqoto kitaabka iyo taariikhdiisoo madmadow badani galay markii la baadhay ama ha ahaato wadaadadii kitaabka haystay oo dadka nafta isugu keenay oo ku amarku taagleeyey oo dee waayada qaarkood ninkii waxay iyagu sheegaan bay saynis ka dhigayeen intay griigii hore ka soo naqliyeen bay yidhahdeen saasay diintu qabtaa ninkii waxaan ahayn sheega waa hartaqadu waxa weeyaan waa bidcoolaana waa in la dilaa weliba xukumkiisu waxaa dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa in la gubaa weeyaan xataa meelaha qaarkood carruurta bidcooluhu dhalo waxaa la odhan jiray qatlu raxma iyaga dilka naxariista leh ka yar inta biyo lagu ridaabaa lagu bakhtiinaya marka isaga waa loo naxariistay in biyo lagu dilay aabbihii baa dembiile ah waa maxaakimu taftiish waxay xukumi jireen kaatoligu waxay dadka ku xukumeen weeyaan dabeetana dee nin arkaya xidig wareegayso la leeyahay ma wareegaysa haddaad tidhaahdo way wareegaysaa waa lagu dilaya wuxuu leeyahy diintaad haysata waxba kama jiraan laakiin akaruhum waxay rumaysan yihiin diisamku waa maxay waa arububiya diisamku waxa weeyaan supernatural inuu jiro war dunidani ilaah la'aan ma jiri karto cid samaysay baa jirta laakiin wadaadadani diintay sheegayaan sax maha bay leeyihin akaruhum baabkaasay taagan yihin maxay hore ugu socon waayeen innagaa habsaannay innagay ahayd inaynu keenno maxay diinta sax ee fajwadan buuxinaysay ee aan ka hor imanaynin saynisku xaqaa'iqdu gaadhana aan diidaynin waayo galileo dooddiisii waxaa ka mida markii maxkamadda la taagayey ilaahay kitaabkiisu buu yidhi iyo ilaahay kownkiisu afcaashiisu marnaba in isburiyaan suurtagal maaha socankaa maaha imaa kitaabkuunbaa wax ka qaldayin oo aan kii saxa ahayn imaa fahamkaynu kownka fahamnay unbaa wax qaldayin laakiin inaynu idhaahno dunidana ilaahay baa abuuray kitaabkanna ilaahay baa soo dejiyey haddana isku wax sheegi maayaan waa waxaan dhici karin ilaahay markuu hadlayay miyaanu wax ogayn wixii uu abuuray waxaan ahayn buu ku hadlay macquul maaha saa daraaddeed iyaga mashkiladda qabsatay waxa weeyaan kitaabkoodii iyo kownkii baa isu waafiqi waayey saa daraaddeed baa diindarro badan ku riday kitaabkoodii iyobaa isu waafiqi waayey maxay iyo kownkii laakiin innaga waxaan leenahay masale kastoo xaqiiqa cilmiya ah hadda maaha theory xaqaa'iq cilmiya waxna waa theories iyo hypothesis waxna waa xaqaa'iq mas'ala xaqiiqa cilmiya oo kitaab iyo sunno ka soo horjeedaa ma jirto sidaa awgeed buu ibnu taymiya kitaabkiisii weynaaye 11 majalladoodaha wuxuu u qoray wixii la odhan jiray maxay dar'u tacaarud alcaqli waalcilmi miyuu ahaa inuu ka hortegaya inay isburiyaan caqliga iyo cilmiga xagga rabbi ka yimi marka waxaynu leenahay mashkiladda dunida taagani waa idinka
iyo aniga iyo inta muslimka inaga dambaysa waayo innaga waxaynu dadka gaadhsiin kari weynay sidii kownka iyo ilaahay kalaamkiisu ay isu waafaqayeen ay dadku uga bixi lahaayeen diin la'aanta iyo atheismka waxa keenay markaa inay ka cararaan diin ay u arkayeen inay qaldareed wallahu aclam billahi tawfiiq جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كوسارو شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون iyo muxaadaradii qeymka ahayd ee ku saabsanayd dadka dafirsan ilaahay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa insha allahu tacaala waxaa inoogu xigi doontaa muxaadaradii sheekh axmed daahir aweys waana inoo fadhiyaa sheekhii